kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka qodobada diiradda aynu ku saari doonana waxaa ka mid a wararka waaweyn ee isa soo taraya ee la leeyahay israa'iil ayaa dalbatay xabadda in la joojiyo ayatullaahi cali khameyni oo saacadihii lasoo dhaafay si la yaabla u karbaashay netanyahu iyo weliba madaxweynaha dalka maraykanka isdhiibitaan iyo waxa ay sheegayaan gaashaanka u daray waxaynu kaloo eegi doonaa dowladda dalka maraykanka oo isku dhexyaac fara badan uu ka muuqdo kadib markii dukumenti xasaasi ah oo loogu talagelinin natiijadii duqayntii nuclearka iiraan ay soo baxday si qarsoodiyana markaas saxaafadda loogu soo gudbiyey waxay sheeganayeen iyo waxa la soo gudbiyey ayaa noqday kaaf iyo kala dheeri qaybaha dambena waxaynu eegi doonaa dagaalka ruushka iyo ukraine u dhexeeya waxaa barnaamijka martiigu aan aad iyo aad uga mahad celinayaa khabiirka weyn ee falanqaynta siyaasadda caalamka injineer axmed abtidoon oo waayahan hawada aynu ku kala mashquulnay duruufo jira awgeed waxaa la yidhi ibni aadan iswaaye arrin baa kala geysay laakiin waanu wada joognaa sida kale marka loo eego oo qodobadan aad la socday janalka cusub waa in loo cimaamado insha allahu tacaala gambaleelkana afurataan ayaan ku dhiirigelinaynaa injineer aad baan kusoo dhaweynaya بسم الله الرحمن الرحيم وما تصنت عبد الحفيظ وقت سلامة يا نربر مركلة هدنا هو ذا إسكوالني هذه هذا كاجم هذا علنا فرصة دستان magaag injineer haddii aynu eegno marka hore bal sawir guud waxaa naga siisaa netanyahu wuxuu yidhi guushii ugu dambeyso taariikhiyan gaaray khameyni wuxuu yidhi guushaan gaarnay lama maqla iyadoo kale trumpna waa maqlaysaa meel walba waxa uu la marayaa fan iyo labiyo tobankii cishaanaa soo gebagabeeyayo sagxaddan soo taabtoo dhulka hoostiisaan dalooliya ayuu ku hayaa see wuxuu jira مركلة وسلامة يا أدقن وسلامة داوداشا نوا سلامة ورسول وينيا runtii waa run qolo walbaaba dhinac bay u faantay laakiin horta waxaa la rabaa guulna way sheegteen oo Trump guusha asaga sheegtay ana iskala buu yiri Israa'iiliyiintu iyaguna guushay sheegteen oo waxay yiraahdeen guul aan hadda ka hor la aragoo la maqal baan gaarnay waliba Netanyahu erayada uu isticmaalay waxay ahayd sidii libaaxii baan soo kacnay gurxankeenna iyo gurdankeenna iyo qayladeennana ilaa Tehraan baa laga maqlay dunida dhanna dhagahan ka jabinay waa hadalka sidoo asagu u yiri ayatollah cali qamaani waa hadlay dharbaaxa aad u xanuun badan aan ku dhufanay maarat Trumpna hadda waa ka kule ilaa wixii nuclear dhan baan burburin laakiin horta marka hore waxaa loo baahan yahay in la qeexo guusha horta waxa ay tahay bal waxaan isku dayaynaa inaan qoloba guushooda aan fiirino iyo waxa xaqiiqadu ay tahay haddaan ku hormaro Netanyahu hubaal waxa ah in xabad joojintu ay asaga ka timid waa arrin aan shaki ka taagnayn waxaa hubaal ah in burbur iyo aan baaxaddiisa la qiyaasi karin weliba Donald Trump baa qirtay oo maaragtay arrintaa aad uga hadlay gantaaladii difaaca cirkaa ka dhammaaday waxaa ka dhammaaday waxay noqdeen sacabooleyay noqdeen taasu waxay keentay inuu maraykanka ka codsado in dagaalka la joojiyo qadarna uu waco oo la yidhaahdo qadarna la yidhaahdo arrintii gal oo ka odayeeya taas ayaa keentay horta in xabad joojintu ay timaado dhinaca Iiraanto xabad joojinta iyagu marnaba ma diidanayn mar walba waxay taagnaayeen dagaal baa nala ku hayaa waana la soo si gaadmaha naloo soo weeraray xabadda waa in la ka joojiyo haddii la doonayo in maaragtay nabad iyo wadaxaajood iyo warar wax kastoo la samayn lahaaba haddaba ninka dee inta laga adkaaday xabad joojinta codsaday la hadlay maaragtay waddamo kale ka codsaday inay dhexdhexaadin sameeyaan horta guusha uu ku faanaya waa barkumataal dharbaaxa inay geysteen taasu shaki kama taagna oo gaadmadii hore ay maaragtay ay nabarro aad iyo aad u culus gaarsiiyeen Iiraan taas waa lama waa marag madoonto waxaa la laayay saraakiisha ciidamada dhan baa jugtii horeba la laayay waxaa jugtii horeba la laayay nimankii muhandisiinta ahaa nuclearka runtii
dharbaaxooyin adag waa laga dhex toosa eeraanta oo gudahooda ayaa dagaalka laga bilaabay runtii duqeymaha kale sheegeen waxay ku aan idhaahda israa'iiliintu ay lahaayeen nuclear baan duqeynaynaa nuclear may aadine inay infrastructureka dalka burburiyaan ayuu horta awooddooda xooggeedu ahaa guusha ay sheeganayaanna waa intaas dhinaca netanyahu yaan dhihina trump runtii waa la isku haystaa saad adiguba u taabatay waxa uu sheeganaya dood badan baa ka soo baxday wararkii sirdoonka ayaa la dusiyey oo loo dusiyey saxaafadda khaasatan CNN ayaa lala wadaagay arrintaas isku dhex yaac badan bay keentay hadda waxaa la leeyahy waxaa la baadi goobayaa ciddii warka gudbisay FBI dii arrinta loo dhiibay runtii arrintaasu meel halisay taagan tahay waxaa la xaqiijiyey in aan nuclearkii iiraan wax weyn loo geysan dhismayaasha la burburiyo waa jirtaa laakiin agabkii muhiimka ahaa inay kala baxeen arrintaas dad fara badan ayaa bannaanka soo dhigay xataa satellite-ku waxaa la sheegay in baabuur fara badan oo baabuurta waaweyna xamuulka la keenay meesha waa lagu arkay in alaabtii laga raray waa la arkay ilaa haddana waxaa la baadi goobayaa nuclearkii la tayeeyey ilaa 60% iyo intii oo weliba la yiri waa ilaa 400 kiilo iyo kii ilaa 20% la tayeeyey labadoodaasa la baadi goobaya meel alla meel ay jiraan iyo meel ay jaani cirib dhigeen lama garanayo nimankii waxaan raadin lahaa IAEA way cayrisay Iiraan nooma soo geli karaan bay yiraahdeen horta waa inaan martaqana amnigeena sugnaa waa inaan maartay nuclearka amnigiisa sugnaa waa in wixii dhaawac iyo dhibaato la geystana aan dib u qiimeynaa oo la hagaajiyaa qodobka ugu dambeeya waa Iiraan maxay ku faanaysaa guusha ay sheeganaysa maxay tahay waxa la leeyahay weerarka ugu dambeeyay ee ay Qatar iyo ay ku duqeynaysay iyo Ciraaq way sii sheegto way soo weerar wuxuu ahaa iska un symbol calaamad buu ahaa maahe wax la ogaa weeye ayaa la sheegayaa ayaguna way sheegeen oo waxay yiraahdeen waxaan ka xunnahay waddanka Qatar oo waddan aad iyo aad isugu dhownahay ah aan ku qasbanaanay inaan maaragtay aan meesha saldhigga Mareykanka aan weerarkaana weerar Qatar ku socday ma aha runtii Iiraan wax weyn oo ay ku faanta ayaa meesha yaalla Cabdixafiidow arrinta ugu weyn waxay tahay in waddankaas la isugu tegay in la gaaday in kadibna maaragtay dagaalkan 12 cisho socday ay bilaabeen sida hadalka loo yiri 12 qabiil laguna qaaday 12 imaam 12 cishana socday runtii reer galbeed kama maqnayn baa leeyahay xataa kuwa ama sirdoon ha ka qayb qaataan ama satellite ha ka qayb qaataan ama drones iyo xog aruurin kale ha ka qayb qaataan dagaalkaas dagaal wuxuu ahaa jamac ah oo lagu qaaday Iiraan haddaba guushoodu waxay tahay inay iska caabiyeen quwadihii adduunka weliba laba dal oo deen nuclear way waxa la dagaalamay oo maaragtay aad iyo aad u hubaysan in ay iska caabisay gaarsiisana heer la yiraahdo waan iyo xabad joojina rabnaa horta intaas ayaga guul ugu filan Cabdixaafid way injineer haddii aynu eegno Iiraan waxay ahayd laba qorshe in la fuliyo in nuclearkeedana la burburiyo dowladdana la bedelo labadii oon midna la taabanin sida wararka hordhac ay sheegayaan odayaashii waaba joogaan arrintii nuclearka oo adiga hadda ka dhawaajiyey ayay soo noqotay Netanyahuna wuxuu ku guuleystay Iiraan uusan weligii weerarin uu ku riyoonayay inuu weeraray Trump waxaa dhinaca kale la leeyahay ama ma kuu muuqataa duqayntuu geystay maadaama doodo ay ka timid dowladdiisa qaar ka midana ay si bareero cad ay u tiri waxba lama gaarsiinin inuu asagu dhinacaas khasaaro weyn uu ku qabo maadaama doorashada uu ku soo galay oday nabadoona noqonaya dagaalada bariga dhexe idinka qaybgelin maayo Maraykan haddaad tihiin uu halkaa ku ceeboobay markuu arkay xaaladii inay faraha ka baxday
hormuus in la xira qarkay u saaran tahay israa'iil burbur fara badan uu soo gaaray uu yiri xaddadan oo xeeradii fadhaal kala dhaceen ama daboolka saara digsiga horta maasha kala saarno runtii dagaalka sida loo qeexay oo israa'iiliintu u qeexeen ayagaa dagaalka bilaabeen waxay ahayd labay ahayd midda saddexaaduna qaabka uu dagaalku u dhacay ka dhex muuqatay labada ugu muhiimsan oo ay yidhaahdeen ujeeddada dagaalkeenna ayuu yahay waxay ahayd kow in nuclearka iiraan aan burburino labo inaan gantaalada qatarta ah ee iiraan aan burburino labadaas horta ayay ahayd waxa sida officialka ah loo sheegay oo dagaalka lagu galay laakiin qodobka saddexaad oo ka dhawaajisay ah regime change in dowladda la burburiyo oo hay-adaha dowladda oo dhan la baabi'iyo si ay gudahoodana laga dhex tooso si isku dhex yaac uga yimaado weliba sida la socotaba waxaa jira codad dhex meeraysanaya social mediaha oo sirdoonka israa'iil ay waceen saraakiil sarsare oo iiraaniin ah oo yidhaahdeen hogaamiyaashiinnii taliyihiinni waa dilnay isaga iyo carruurtiisi waa israacinay adigana waxaan kuu sheegan haddaadan yeelin sidoo halkaasaad maraysaa macnaha dalka in qalqal weyn inta la geliyo la yiri maaragtay xukuumadda in laga soo horjeediyo arrintaasu qaabka dagaalkay ka muuqatee officially wixii lagu dagaal tegay ma ahayn laakiin markuu maalmo dagaalku socdo kadib ayuu netanyahu la soo shirtaguu yidhi maaragtay regime change yaan rabnaa iyo in maaragtay xukuumadda meesha laga shaaro waa ka khudbadda akhriyo reer iiraanay kaca oo kacdoon sameeya waxaa laakiin saddexdiiba midna ma suurtagelin runtii khubaro fara badan oo arrimahan ka hadlay waxay xaqiijiyeen in iiraan nabarrada gaaray inay ka soo kabsato aanay waqti dheer ku qaadanaynin oo meesha uu maraykanka iyo ay leeyihiin sannadaan dib u dhigna waxoodii inay hadalkaas uu been yahay tan waxaa kuu soo hartay maraykanka iyo trump horta si clevernimaa buu sameeyey dagaalka markii hore ma gelin waa sida uu isaga official maarata looga iibinaya dadka warbaahinta looga iibiyey bannaanka ka daawanayaa buu yidhi markii dambena waa soo afjarayaa buu yidhi marka isagu wuxuu hadda guusha uu ku naaloonayo maraykan u sheegaya waxay tahay dagaaladii maraykanka uu ku riiqan jiray ee dhibka badnaa ee aan laga lug bixi karin oo hadday tahay kii ciraaq hadday tahay kii afghanistan hadday tahay kuwii ka horreeyay ilaa iyo vietnam wax ka duwanaan la imid anugu sheekadiina waa soo afjaray khasaarana nama gaarin maaragtay cadowgiina waan jebiyo madaxan ku dhuftay marka guul baan america u soo hooyey iyadoon dhiigna uga daadan dadna uga dhiman khasaarana ka imaan marka taas weeye tan isagu guusha ka dhiganayo oo uu leeyahay ballanqaadyadii midda kale hadal waxaa jiray mar su-aal la weydiiyo ka dhawaajiyey oo runtii muhiim ah in la ogaado waxaa la yidhi america first ayuu ahaa barnaamijkaaga maxaa keenay inaad hadda howlahan kale aad gasho wuxuu yidhi difaaca israa'iil waa america first halkaasuu la aada baashii marka isku soo duub meeshaas guuldarraa ka dhacday aan la qiranaynin faan iyo boota cidlaa ayaa lala taagan yahay eeraanna wax ay ku faantay haysataa oo ah cadowgii na soo weeraray waa iska dhicinay cabdixaafid waaya injineer waxaan rabnaa qodobkan halkaas ogaga baxno balse intaa ka hor iiraan waa dagaalantay israa'iilna waa dagaalantay marka aynu eegno burburka ee soo gaaray israa'iil iyo sidii loo maleynayay in la yiri gantaaladii ku dagaalamaysay ayaa ka dhammaaday iyo netanyahu uu ku celcelinayay keligeen baa dagaalka tegayna keligeen baa isdifaacayna waa isku filannahay israa'iil maanta cagaheeday ku istaagtay ayuu ku booteynayay marka aad eegtid xaaladdu siday noqotay iyo qayladhaanta la geeyey
iyo in burbur Tel Aviv aan la arag weligeed soo marin uu soo gaaray maxay ogaga dhigan tahay Iiraaniyiinta Netanyahu iyo difaaciisa maxay ka leedahay horta cabdixafidow dagaal sidiisaba dagaal horta waa tactical iyo operational sida loo qorsheeyo tacticada la ciyaaro iyo qaabka loo fuliyo Iran tab aanay filanaynin ayay horta la timid horta laguma xisaabtamin Iran sawaariiqda ay hadda la soo shirtagtay oo runtii sawaariiq aad iyo aad halis u ah oo hypersonic ah aad iyo aad u dheereeya wixii la dhoodhoobayay ee loo baxay magacyada loo bixiyay hadday tahay Iron Dome hadday tahay David Sling hadday tahay maaragtay taadkii hadda maraykanku uu meesha geeyey Patriot adigu you name it wixii oo dhanba inaanay waxba daafici karin ayay keenay taasna waxaa u suurtageliyey tacticada ah in sawaariiqdii hore oo duugga ahayd horta la howlgeliyo si loogu mashquuliyo difaaca cirka si gantaalada ay wax ku difaacayaan ay xoog ugu isticmaalaan ayaa waxaa la isticmaalay droniskii hore ee waddanku haystay waxaa la isticmaalay sawaariiqdii hore deetana marka ay runtii aad iyo aad u isticmaalaan ayaa hypersoniga loo gelinayay taas horta aad bay ugu guulaysteen ilaa ay markii dambe Israa'iil waxaa la leeyahay 12kaas maalin aan markay ugu yar tahay 4-5 duulimaad aysan imaanayn oo rasaas la keenayn ma jirin midda kale wixii Ukraine la geeyaa la soo daadguriyay la soo celiyay oo meesha la keenay wixii oo dhan waa dhammaadeen marka horta taas ayaa nimanka runtii araxda ka jabisay tan kale haddee Netanyahu runtii marnaba muuse is oran marnaba ma is oran sababtoo ah qorshe muddo dheer la degay buu ahaa Israa'iiliintu ay muddo qorsheynayeen waa dareemi kartaa warshadaha waxaa laga dhex samaystay Iran gudaheeda droneska lagu sameeyo xog aruurintu waxay ahayd in dadka muhiimka oo dhan detailskooda la wada hayo waxaa la helay telefoonadooda waxaa la helay guryaha ay tagay seexdaan qolalka ay ka seexdaana la helay waxaa la helay maaragtay xilliyada ay seexdaan waxaasoo dhan baa inta la helay ayaa wax inta la isku aadiyey bahaladan lagu dilaynayana waddanka lagu dhex sameeyey ma ahayn wax bannaanka laga keenay in qaabkaas loo isticmaalo oo argagax waddanka dhan la geliyo laakiin marnaba ma is oran Netanyahu nimankan dharbaaxooyinkaasi ka soo kabanaya laakiin hadda Iran waa waddan aad iyo aad u weyn waa waddan maaragtay runtii ka awood badan inta loo malaynayo runtii ciidan xoog la leh shacabkuna waxay sida ay hadda muujiyeen in aysan dabinkii la dhiga ku dhicin ee ay dalkooda daafacdeen daaf way injineer haddaan intaas ugaga baxna halkaas dagaalkii Ruushka iyo Ukraine waa socday waxaynu la soconaa Gaza waxaa ka socda dilal ay isdaba jooga laftigeeda bal dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo Gaza isugu keen qaba meesha ay wax marayaan doorka Shiinaha iyo Ruushku ay ka ciyaarayaan dagaalkan hadda Ukraine u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil soo gabagaboobay asaga laftigiisa siyaasad ahaan muxuu daaray horta su'aal aad iyo aad muhiim u ah waay horta cabdixafidow Chinese-ka iyo Ruushku horta Ruushku dagaal buu ku jiraa inuu agabkiiba asagaa u baahan sawaariiqda asagaa u baahan difaaci cirka asagaa u baahan ma muuqato aniga mana ii muuqato wax awood ah oo Ruushku ku biirin karay aan ahayn afkaas uu ka hadlayay oo xataa uu isku dayay arrintaa daraaddeed oo Putin la hadlay Trump oo yiri aan meesha ka odayayo anigu wuxuu isku dayay in dagaalka la joojiyo aad iyo aad buu isugu dayay Ruushkuna mid waa og yihiin haddii Iran la jabiyo waxa loo soo socdaa
oo regime change meesha laga sameeyo xukun kale laga samaysto Iran xad bay la leedahay Ruushka waxa loo soo socdaa waa Caspian Sea waa dhulka dhan laga waardiyeynaya nimanka odayaasha horta marka Ruushka horta halka noo dhig Chinese-ka ku soo haray Chinese-ku runtii asaga laftiisa caqabada ku furan oo arintii Taiwan iyo Mareykanku waa mashquuliyay iyaga laftooda maraakiib waaweyn oo dagaal baa xagga Pacific-ga la dhigay runtii dabinka inuu ku dhaco asaga laftiisu badoonayo oo hadda ay Mareykan isfara saaraan laakiin waxa la xaqiijiyay oo dhab ah Chinese-ku inuu maalin walbaba duulimaadyo toosa oo diyaaradaha waaweyn agabka qaada ah oo sameynay maalin kasta ay ka imaanayaan China ka soo duulayeen imaanayeen Iran ay imaanayeen taas horta waa la xaqiijiyay oo Chinese-ku meesha laakiin su'aasha ka muhiimsan China iyo Mareykanka waxay tahay kooxihii iska caabintu xagee ka baxeen Iran waxay dhaqaale fara badan ku bixisay oo muddo aan dhihi karno ilaa dhowr iyo 30 sano 40 sano ku dhawaad ay qarash hantideedii ku bixisay abaabulka in la abaabulo Xisbullah in la abaabulo kooxaha Iraq jooga in la abaabulo kooxaha Falastiin jooga in la abaabulo kooxaha Yemen jooga niman kooxahaas ayaa horta meesha ka maqnaa su'aasha la isweydiinaya waxay tahay kooxihii ma la jabshay oo mar hore madaxa laga jaray oo wax awooda ma hayn mase hagrasho kala jirta ma waxa jirta annaga markii naleynay nooma soo gurman oo dees hadda Xisbullah oo kale waxay islahaayeen haddii markii Xasan Nasrallah la dilayay markii madaxdooda la garaacay Iran waxbay samayn doontaa markii Iran xataa saraakiishooda lagu leeyahay dalkooda Iran dagaalkii soo gali doontaa ba islahaayeen laakiin dagaalka lama soo gali marka taas lafteedu waa wax dhici karo loo qaadan karo hagrasha inay jirto marka meesha kooxihii ay ku abuuratay Iran ma ka muuqan aan ka ahayn Yemen oo de markii wax tuurayso tuuriyada may deyn Yemen marnaba may joojin ilaa iyo inta arinta Gaza ay taagan tahay tuuriyada waa wadayaan laakiin ma ku filayn in Israa'iil la mashquuliyo culayska faraha badan ee Iran la saaray in laga dabciyo waxay ahaan leeyahay hadii Lebanon iyo dagaal laga soo qaadi lahaa iyo dhinaca Syria hadii halka wax ka imaan lahaayeen waxa dhici lahayd in maaragtay ay culayska laga qaado oo ay runtii neefsasho hesho 12 kaas cisho abdaxaafid waayahay injineer aad iyo aad u mahadsantahay daawadayaal channelka cusub ee injineerku uu noo sameeyey anigu aan u bixiyey jaamacadda siyaasadda caalamka wararka degdega iyo falanqaynta caynbacaynka hawday mala'aanina oo aan mar walba halkaan idiin soo saarno injineer Axmed ay ku qoran tahay abtidoon iyo caalamka waad u jeedaan marka fadlan ku dadaala inaad ku xirnaataan ka warqabtaan maxaa yeelay intaana halkaan isla joogin injineerku maalin kasta si joogta ayuu wuxuu soo geliyaa wararkii ugu dambeeyey oo annaga xataa mararka qaarkood aanan helinin injineerku xog fara badan iyo khibrad fara badan ayuu hayaa halkaa kala socda injineer aad iyo aad u mahadsan tahay 100% daawadeed idinkuna waa mahadsantihiin intaan kaloo kale dib u kulmi doono nabadgelyo